وأنا كي أنت هلا حرب لنا هدني وحرب لنا وحير بيجوي أنت هاي اللغة غير هذه الضمرة ما ينفردين وسلوكهم وطلعنا على وناس سلوكهم متكستمها هاتي وإما توكل ما لين عصبيتها أشبينا آليات بانو مهنغيا وحلا هاي halka aynu ka sii wadno waa guul baynu taagan guul waayo waxa inoo wax tara intaasoo isba arki jirin oo kula maanta saaran oo waxyaabo cajiib ah ee dawladdu ba sameyn kara arrimada noocan yani dad yar baa inta oo ku guuleystay waa wax adag waqtiga la bixinayo sida loo soo dhigayo sida loo macnaynayo qof arrimadan oo kala galay u baro marka waxa leeyahay qolada arrinkaas u jeedisay waa ku mahadsantiin مرق يوم مسكح يوم مال وحوالي وحيا لوجا باهتان أريد حقيقة والد فكر بتاعنا هاي هلكا كسي ولا شركة كبر لنا إلهي بنكبرينا إن المسؤول ماضو وسيدا كسي قروح بدن أنت أصلا هذا الكسور قابين يا شد مريض بالليسية وعمر وحبا كويل تحصلي ترى حالي بالليجا هنا يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع سيد عبد الحميد إقبال حبا يلو يو وينك قربتشوف يلا كمثل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدي أدبان سلام يا دمان مرتي شرفتا مدنية مروي غير بكر حديد أدي أدبان أمهات سنتين سيدة شرفت يموك يميسان كله أبغى صوت طيب كشين شروينها لجو هرمرين أيوه دن تغيرك أنا وكا وكيلا وربتشوق غير أبوكر حديد فرت السلام آدي قالية وكعلتويو أيان دين كسيدا سلام كدي وحويا وقت غير أوجد وحبا بان ورمها لكن يمسك تجلسوا إن محي هذا أنا نلاحظه الحمد لله رب العالمين هرتا إلهي أيام هذله إنه وافجيه إنه مدونه وإنه نهانه وحين هانشرني وحين نيداد اسكوميدا ومدع يوم فعبه وكذا حيو مركا الحمد لله هرتا إلهي رب هذله مرلبات وحنا مهد عدنيا حبناها قالقة إسكحل صاري سيدا يسوق كيني لهاين غيرك يبغون عندنا بأباء في دونين يضع عندنا بقى عين مشهر عين وقرين وقف قرينين وقفوا اليوم وسيم تدوعني ما وقش قينا يوم ما عرفت يعني ويسكحل صارت أنت رأيك وحاملان هاي كل أباء كين إلهي بوجود كرب آليات بومهات سنتين لسان حسنات كان الله يدين صاروا تاسوح ومهد علمتي تذكي أساس ياشا ururka waxa weeyaan reerka maanta si sharaf leh oo xogogaal laysu yahay oo laga wada socdo wax walba ayaa jirta WhatsApp baa lagu xidhiidhaa waa la iska warhayaa ka baahan baa la ogiyay ka bukaa la ogiyay ka ifan guursaday baa la ogiyay ka wuxuu dhasheen baa la ogiyay ka xanuunsanaya la ogiyay ka xoogaa jeeb weynaha ahee maaragtay reerka yara xoogaa haystaa la ogyahay ilaahay baa mahad iska leh maynu lahaan jirin reer abakar wuu islaaway ilaahay baa mahadlayna waafajiyey waxa markaa weeyaan inaynu halkaa ka sii soconno horta ilaahay baa mahadle ururkeenu wuu yar yahay sidaan filayo February buu ahaa inta uu jiray iyo inta uu qabtay aad iyo aad bay u kala badan tahay dad baahnaa oo boholyo iyo basaasi ay haysay wax soo gacan haadiye aan haynin ayaa tala wadaag uu gacan haadiyay qof walba uu hidoobay qof walba waxba uu la hadwaayay hayt waa meesheeda wax walba yuhuunta ayaa ka wanaagsan qofka $1 qaadaan bixiyo ka tala wadaag iyo ka $1 ka ahi waa isku darajo lacagtu power maaha waxa power qofka ay ehelnimadu ay ka dhabtahay ee daacadda ee horumarka reerka jecel ayaa power marka waxaan ilaahay ugu mahad celinayaa dad badan oo ii muuqda oonan hebel odhanaynin oo reerka u soo baxay iyo in badan oo dhufaysyada ku jirta oo hurdada laga kicin doono yaro hurda marka waxa weeyaan anigu waxaan wadaa imika abaalmarinahaas 7 qof baan wadaa
barbarkay ka baxda dee waa bakayna qaleen taa kale rag iyo dumar baynu kala nahayo dee imaka anoo ku hadlaya magaca dumarka bal rag iyo dumarka reer Abukar ka fiicnaada almiidaan waasac bay carabta tidhahdaan waxa weeyaan anigoo u soo noqonaya waqtigoo yar awgeed haddaan reer xaaqinahay 6 qof baan qaadaan bixiyaal kaga nahay talawadaag oo adduunyada daafaheeda ku kala nool wallahi talawadaag horteed anagu isbabaanaan anaga eegan baaba kala ma aragtay waqti bilo aanaan xidhiiri jirin alxamdulilah rabbil caalamiin qof walba talawadaag waa u faa'iido waxa weeyaan kolley dee in la isbarto oo ma aragtay la isogaado oo cid walba iska warhaysa way tahay waa shirweynihii koobaad talawadaag amba reer Abukar weligay dad badan baanan garanaynin wallaahi waxa weeyaan ilaahay baa mahadle horta Somaliland 18 May bay xustaa laakiin reer Abukar xuddiina waxaan maanta aanu caddaynay inaynu xusi doono August 5 2016 oo ah maalintii aynu isugu nimin taasoo qof oo ehela waxa weeyaan kolley halkan waxaynu howlkan u kiraysanay inaynu wax ku kala faa'iidno anigoo ka wakiila magaca reer Xaaji Cabdilaahi oo isku duuban Soomaali waxay tiraahdaa 5 reer oo wada yaala hal shanshaa ka baxda 5 reer oo kala yaalana 5 shanshaa ka baxda waxaan ku dhawaaqayaa anagoo qaadaan bixiyo joogto ah ka ah talawadaag kana ahaan doona munaasabadan awgeed $500 inaanu fundraise ku dhawaaqno waa in lagu furay abaalmarinta waxaan u wadaa gudoomiye Cadnaan gudoomiye ku-xigeen Ayaan Ibrahim Fuad Aasiya اللهم صل على محمد فرحان كيد iyo waxaan wada amaal 7 qof meega dhanyihiin inta kale gudida amba xubnaha firfircoon waa la kala baxayaa sida abaalmarin u qaadataan sida duco iyo abaal iyo ajar u qaadataan sida magac iyo manfac adduunyada korkeeda iyo aakhiraba u heshaan reerkiina waxba ha kala hadhina naf iyo maal assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفضل ما حصلت هاي يمكن واحد هذا كسر وينيا جدي ذا النوقت مي برعاء قبل كبرعاء وحن كسر وينيا جواهر أحمد خاوي. فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو سلامتي إذا ما أردت مكتوبة كثير لكن بهوين فالسبوت اللي ماشى رجع الدمر بقى صالح مروي غنياي عقال شيخ ما هو سلامتهم وحا عن ارتواء سيدا محمد حسين شاقي والله يقول يا رحضي وتافر لقد بقي سفرنا وكايمي وحقي يا بينا يرد على المدينة فرطا waxa haraysa marka la arko shirkan hadii laga soo daayo meelaha muuqaal kale maqal iyo muuqaal bala la iska arko inta yar Abukar jiraan waayo waxa la oranayay Abukar waayo marka tiiba haraysa maanta wada waa la shaacinaya ama waa la sheegaa de marka shaacistiiba maanta ay ku jiraan insha Allah waxaan rajaynayaa in aynu de halka ka sii wadno hadda koowaad waxa Allah iska leh talabaadna waxa leh gudidan is abaabushay aad iyo aad baan u farxay sida ay hawsha u wadaan ay u abaabulayaan idinkana waa in hawsha de haweenkan iyo gudidan wada ay la qabanno oo la qaban qaabino oo waxa la wixii ay soo sheegaan ama baahi ay jirto inaan lala gabane de halka laga sii wado ayaan ilaahay uga baryayaa hadal badan idin oran maayo laakiin se waxa aan u ducaynayaa gudida waday iyo in ilaahay de gacmaha la isqabsado oo halka laga sii wado midda kale de horta anagu xaga barcawaan ku yaroo dadweynaha ninka jooga magaca guud mooyaane de inta dhalinyaro ah ee ka daba dhalatay ee ay sii dhaleen
dee garanba maayo waxaa ka mid ah in cali gacanlow baan garanaya laakiinse wixii ay dee markaa dhaleen dee waana naga fogaayeen adduunkuna dee sidii hore maahay waa la kala tegey dagaalaa dhacay tafaraad waa dhacay marka in arrintani iyo ururkan la sameeyey inuu isu keeno dadkii oo tala wadaagaa la yeesho ayaan ilaahay ka rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وقت جوي نبوك وبن أوجد تدفع رمضان بنقطعنا أذكر عليها هذا صلاة المغرب على الجلية إما كانوا حنو يريا قدوميها حاحي يوسف محمد نور بن يريا وصدق دقيقة قرآن سيدنا وينقوا رمي دونا حاحي information لما يستحق. marka ugu horeysa ilaahay mahadi weeyaan waxaan salaamayaa dhammaanba ka soo qaybgalayaasha shirkan marka koowaad mar labaad waxaan salaamayaa guddida soo qabanqaabisay ee sharafta leh hawshan ballaaran ee qiimaha leh anigu hadalka badin maayo haddana ninkan salaxa xagga waxayna waqti ugu dheeranayaa laakiin horta maanta anigu sidii qoladii hore sheegeen aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay farxad aan la koobi karin munaasabadda qiimaha leh marlabaadka waxaan salaamayaa guddida soo qabanqaabisay ee qiimaha leh aniguna shahaado sharaf ku siin doona maanta maalinta waqtiguna ugu gaabayey inaan ku warmo dee xaaxiyi meeshaan ka imina kuma gaarsiinayo wasalaamu calaykum يوسف waa ninka waxa weeyaan gobolka kaliya amba magaalada kaliya ee reer Abubakar Xadiid ay ka taliyaan ayuu gudoomiye ka yahay imikana waxaan ku soo dhaweynayaa sheekh guddi nooga timi raqla sheekh maxamed soofan ku dhaweynaya si kelmadadiisa inoo dhahdo inagoo siinayna 3 minuut oo kaliya waqtigu alxamdulilah ilaah baa mahadle waxa mahadlahoo kale dadka arrimahan iyo hawlaha soo qabanqaabiyey waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay ka jisaysiiyo waayo wax wanaagsan bay qabanqaabiyeen takala markaan hadalka soo gaagaabiyo waxaa la yidhi ninkaa fulaaha kolkaasaa maalinta dambe uu dagaal galayo waran buu ridayo uu ku yar dhawaaday nin dagaalkiibu ku yar dhawaadayo meelihii magaranaysa nin baa ku yidhi arrimuhu waxa weeye hebelow ama marta waxqabsigu waa intaasoo laga sii yar dhawayso waxa weeye arrimuhu intaasoo laga sii dhawaado weeye ta kale waxaan leeyahay ilaahay baa mahadle nimankii hawshan galay iyo dumarkii galay iyo hablahan galay waa mahadsantiin sidii wadaadkaan uu sheegay isagii ilaahay tisaayii hayna siiyo tu labaad faa'iido badan ayaa sidka ku jirta waayo in badan oo aanan aqoon baa inuu ka baranay hadda marka waxa weeye oo aan leeyahay ilaahay haynala qabtee hadalka badin maayo waayo ragga odayaashii waaweynba ima yaqaanaan anna ma aqaano faa'iido badan buu leeyahay anigu waxaan ka yimid hawskii raggi baan ka yimid hawshaas dhegtaan ka maqlaynay imakana waanu ka shaqaynaynaa waxbaanu ka qabanaynaa wixii kaste ee nala soo gudboonaada ururka iyo shirka ayaan kala socon doonaa haddii alla idhaahdo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nooran doona labada xaga siinaya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية وحي نوجه شيخ عبد الرحمن كلمة كتاب صلي خيارات جيد ويسكت صورك أنا محرم وكليا هل الوضع وكليا خيرات ولو وقت بدنا يسن مركز حواليا تركوا الهجران يعني إلا نتوقع إلا كلمة جوزو والله يسمعوا وعلوش ولا يسمعوا قبطوا وقفوا بكوجة الخوف وإلهي سبحانه وتعالى وحوله إنما المؤمنون إخوة مؤمنون ولا فأصلحوا بين أخويكم ولا لي نحن تشيسية ويسكوح النار ومئها إلهي سبحانه وتعالى يكتب وحوله وتعاونوا على البر والتقوى
على الإثم والعدوان يعني اسكو عاوية أو اسكو قرب شوف سنة اسكو راعة بريقة يا الله كعبسي هاي اسكو عاويننا وحي ذنبي يو إثمية هاي اسكو تهاجرنا نبينا عليه الصلاة والسلام وحويري لا يحل لمسلم قف مسلم حلال معها أن يهجر أخاه ولا يمكن فتره فوق 3 ليالي 6 حبيب كبلا يعني قف إسلامه حلال معها ولا يمكن كي يجرونه أو كما قالوا 6 شهور كبلا فيعرض هذا ويعرض هذا يعني كنو جسنيا كنو جسنيا ولا كلا جسنيا وخيرهما وحو خير بدل النبي عليه الصلاة والسلام الذي يبدأ بالسلام كسلام تكون بالعرب حديث كاسنا هو حديث متفق مركا waxa loo baahan walaalayaal inay mid ahaano oo isu calool fayogaano oo qof waliba walaalkii uu yaani soo dhaweeyo oo caloosha wax ugu qaban intaas aan ku goobaya subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala soo dhawaaday gabagabadii iyo gunaanadkii shirweynaheena waxaan ku soo dhawaanayaa artikalkii ugu muhiimsanaa qodobkii ugu muhiimsanaa ay guddidu doonaysa inay kala hadasho bahweynta reerka sidaa daraaddeed waxaan idinka codsanaynaa inaad noo yaro dul qaadataan aamuskana aad nagu yaro dadaashaan oo degahana siisaan 5 minutes only 5 minutes oo kaliya insha allahu biidnillaahi kariim waxaan ku soo dhawaynayaa gudoomiye cadnaan baan ku soo dhawaynayaa suuqa nabi sanada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا غير هلا هذا كل وقتي صبروا رجلي هلا حتى وين اللي كلمة إيه وقت وأنا غير المرة قبل الساعة شيء شو قال لي قولي رأي كتير جديدة أما على سبيل المثال بيبان دي شوية وحقبتي وكالة كم بدها وحاولت كساقتي تلوثنا قراءة وحنا يا ويكون بحنا العق كل يلا بقول دورنا ودك نشتغل السنة عقل يميل إلى جسم قلا لسيء العق قراءة توش بقول ولا بحية ولا قطع قول ولا بتر مركا قرط كان واركب ودو كده بتجي أو كل مهم سيارة في الخلايا العق تقارع كون خروج هذه أدوم مسقي نتبع حاجة يا كلامك واحد بس يسعدنا waxaan ku sii socon doonaa bal cidii kale qaaraabay inta waqtigeeda ugu hadhay in halkan looga dhawaado ayaan jecelahay waxaan jecelahay adigoo hiba maxamed shaquuse inaan ku bixiyo 200 waan ku sii socon doonaa cid kale cidii jecelahay si muuqda noola xidhiidhaha si muuqda ayay u xiriiri kartaa cidii kalena si hoose ayay noola soo xidhiidhi doonaa insha allah بسم الله شيخ تاسو كريه هاي صلاه وقامتي waxaan u ducaynaynaa inta xanuunsanaysa ilaahay caafimaad inuu siiyo inta dhibaataysan inuu ilaahay dhibaatada ka dulqaado inta wax qabanaysa ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu waxay qabanayaan ilaahay tabaaraka wa tacaala siiyo qof kastaba halku ka ciilan yahay ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu ka ciiltiro sidoo kale waxaan idinku mahadcelinayaa ajiibitaanka soo ajiibteen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shukran wa